bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo dhammaan ardayda dhigata iyo kuwa ka qalin jabiyay jaamacadda Hormuud oo runtii xaqiijiyay guul weyn oo dhanka waxbarashada ah maadaama ay ku guuleysteen inay ku dabaqaan waxbarashadoodii theory-ga ama class-yada ay ka qaateen macallimiintu bareen suuqii iyo waaqicii iyo deegaankii maadaama ay baahi guud jirtay oo waxbarashada ah jaamacadda maadaama non-profit ay tahay ama ay hay'ad aan faa'iido doonahayn ay tahay ujeedadii koowaad oo ay ka lahaydba waxbarashada waxay ahayd in la soo saaro arday ama aqoon-yahano waxtara dalkooda iyo dadkooda xaliyana baahiyaha taagan waddanka taasna waxaan rajaynayaa insha Allah tacaala inaan ku guuleysanay inta dhimanna insha Allah tacaala inay ku guuleysan doonaan hadduu Ilaahay idmo maadaama jaamacaddu inteeda badan ay hayso takhasusyo gaar ah ama unique ah oo jaamacadaha dalka intooda badan aan laga helaynin haddana waxaan sii raacinay oo jaamacadaha kale ay uga yar duwan tahay in ardaygii aan lagu aqrin theory kaliya la isku dayo ama xoogga ama muhiimadda ugu weyn la saaro iyo muruq iyo maalba la isugu geeyo in ardaygii wixii uu bartay ama la baray in uu dabaqo oo ku dabaqo baahidii iyo real life-kii suuqa ka jirtay taas ayaa waxay keentay in ardayda sanad kasta qalin jabisay iyo kuwa jaamacadda dhigtaba ay soo saaraan barnaamijyo manaaficaad u leh bulshada Soomaaliyeed kuwaasoo xalinaya baahiyooyin taagan caawinayana wax soo saarka iyo horu socodka iyo nidhiska ardayda iyo bulshada inteeda kaleba waxaan aad ugu hambaliyeynayaa ardayda mechanical engineering gaar ahaan teamkii usbuucan sameeyay gaariga iyadoo awal programyo hore u sameeyeen oo diyaarad yariiso mani ay ka mid tahay xaqiiqatan waxay taas caddeyn u tahay jaamacadda Hormuud waxbarashada ay bixinayso inay tahay waxbarasho quality iyo tayadii loogu talagalay leh isla markaana ay dhigayaan kaadirkii iyo macallinkii loogu talagalay oo quality-geeda lahayd isla markaana ay u gaarsiinayaan ardayga sidii loogu talagalay ayna soo saarayaan productigii iyo ardaygii la rabay in la soo saaro oo hadaf u ahay oo ah arday Soomaali ah muslim ah aqoon-yahan ah ka turjumaya diintiisa iyo dhaqankiisa iyo dalkiisa iyo baahida ka jirta iyo aqoonta looga baahan yahay ardayda programyadan sameeyeen ma aha kaliya kuliyadda makaaniga laakiin makaaniga ama qaybta mechanical engineering isbuucan gaariga soo bandhigay iyo teamkii daahiye waxay maaragtay marag iyo marqaati ka yihiin quality-ga iyo waxtarka waxbarashada jaamacaddu ay bixiso iyo inay la jaan qaadi karto waxbarashada caalamiga ah ee adduunka ka jirta ayna leeyihiin ardayda Soomaaliyeed hal abuurkii iyo maxaan ku iraahdaa tayada laga rabay jaamacaddu runtii waxay u haysaa dhiirigelin iyo waxay u haysaa aqoon iyo maxaan ku iraahdaa hal abuurkii la daba taagan tahay inay ardayda ka faa'iideystaan maadaama barnaamijkan Cabdullaahi sidoo sheegay iyo teamkiisaba ay jaamacaddu lahayd aragtida u keentay ardaydeena ay ku barateen sida ama ku tartan siiday inay ka faa'iideystaan fursadaas Cabdullaahi iyo teamkiisana ay noqdeen dadka hirgeliyay oo meel mariyay oo fikirkiisa codsiiyay bismillaah ugu horreyn magacaygu waa Cabdullaahi Cusmaan Daahiye waxaan ka mid ahay arday sanadkan ka baxday jaamacadda Hormuud University qaybta engineering field of mechanical engineering baabuurkan horta baabuurta dunida laga isticmaalo wax badan oo ugu duwan yahay marka ugu horeeyo horta baabuurka motorka saaran waa motor MMC waa motor Halbustan yani systemada baabuurta markii loo eegana coolant system anaga ma isticmaalin baabuurta dhowr system oo kala baxan intaas oo system ay jirto automation markii laga hadlay anaga qaybta oo coolant system ka ma isticmaalin يعني Soomaaliya marka kugu sheego eray bixin Soomaaliya oo xagga birta ma jirto way nagu adag tahay laakiin badan anaga erayada Talyaaniga isticmaalna soo marka Talyaaniga Soomaalida waxay ku dhahaa qaybta raaytooraha ama biyaha gaariga qaboojiyo ku shuba anaga ma isticmaalin because of motorka isticmaalna waa motor aad u yar baabuurta kale wuxuu dheeriyaa waxa waa shidaalna ma cunayo waxa waaye salbatoodiisa xataa 3 litir ay qaadaa 1 litir laga yaabo maanta in iskaga wareegto oo wax shidaal ka cunin waa gaari two wheel drive ah waa gaari yar oo gear ah waxyaabo badan oo leeyahay ma soo koobi karno qarashka galana waa qarashaas u badan ma ahan jaamacadda iyo maxaan ku iraahdaa maamulka iyo macallimiintaba waxaan ugu hambaliyeynayaa shaqada wanaagsan ay u qabteen ummadda Soomaaliyeed taasoo ah maxaan ku iraahdaa kaalin weyn ka qaadatay maxaan ku iraahdaa in la xalliyo gaabka waxbarasho ee jira iyo in la soo saaro kaadir leh aqoontii iyo khibradii iyo maxaan ku iraahdaa xirfadii loogu talagalay ee suuqa uu ku gali lahayd aad iyo aad u mahadsantihiin